قلب دغ عيلكيس iyo qabiilkiisa horta anay ahayd inay xoolaysiyaan anay ahayd wallahi oo billahi tala koon aniga inaan meed la fiisata lama arkay ani maxamed hadaan keenay go'aankiisa markaas dawladda ay leedahay ra'iisul wasaaraha jooga madaxweynaha jooga xukuumadda joogta an halaki haduu niisadaas masabidka oo aniga aan waliba dirin hadii ama ay dhiibi lahayd ama ii sheeg maxaan ku dhahay ay dil lahaayeen eedda anay fuul lahayd now it's shared responsibility horta aniga hadaba xamar keenay ninkaas mas'uuliyadiisa waa iga wareegto saana loo dhiibay saana taa hebel la dhiibay in arrinkaas marka sida u handal gareynay waa ka shalaysana horta qalbi dhagax aniga anoo mooga la qabtay tala kuma lahayn qabashadiisa laakiin soo badbaadshay waxa ii sheegay aniga nin la yiraahdo Umar Dheero Safiir ah iyo nin Sakari la soo wacay oo nin qalbi dhagax la yiraahdo jiro ciidanka nabad sugidda oo mudug ay haystaan war ma hayo anigana taliyaha nabad sugidda mudug markaas ninka qaban maba aqaanba I don't know him maxaan ku dhahaa crisis kacay marka nimankii waxay dhaheen niyahow ninkiina waa lagu tartama oo Cabdi Ilay iyo Etoobiyaanki iyo Hebelow iyo Soomaalida naftooda Etoobiyaanka iska gade ninkii gado oo waxaas iyo waxaas loo dad badan madax badan oo Soomaaliyeed oo regional leaders iyo waxaas oo ku jireen ninkan ma aqaano sababta loo qabtay ma aqaano cunugan qabtay ma aqaano wax jinniyo adig mogtahay oo aadan balaayo afka aad la gashay ma jirto nimankaas ay la hadlo xireen ninkaas waa la dilahay xamarkan muxuu ahaa ninkaas ninkii marka gaalkacay lagu haysto oo yaa haysto niisa haysto niisa ani gaalkacay kuma ogeyn balaayadan intee ka soo dhacday ilaa niisa aniga markii lagu horeeyay inta la sameeyay mushaarka aan ka jarjaray reform aan sameeyay wixii wax gobolada jiray ma ogeyn they were not paid dadka gobolada jiray markaas lacag lama siineen dawladdu sidaan tabar badan ma lahayn ninkan marka oo niisa jooga oo qabanaya hadda ka hor qalbi dhagax gaalkacay joogi jiray asaga iyo nin kale saddex nin loo tababaray ninkan specifically inuu soo qabtaan Ethiopia laftu tababartay waxa tababartay dawladda Ethiopia u tababartay niisa horteed baabu u tababarnay inuu ninkaas mar hore gaalkacay ninkan degana ninkan Ethiopiaanku waa ogaayeen laakiin nin oo gurigiisa jooga wiilkiisa iyo nin Puntland ka soo jeeday iyo ninkan qabanayo niisa head ka ah markaan saddexda nin aan 6 bilood tababar ah loo soo si ninkan inay qabtaan ilaa markii tababartu soo dhameysteen oo ay soo noqdeen ninkii one way the other markii ogaada maxan gaalkacay waa ka guuray wuxuu soo degay caalasha biyaha so the mission waa fail group waa gool dareyst waa la iska dhaaf markii nimankii hadda bacdaba nimankii meeshii joogeen oo ka soo bedeshay maybe meeshaanay dad uga sameysteen shaqadaas qabsada nimana dartiis loo dilay walaha aan soo sameeyay adii ninkii gaalkacay ku noqday nimanka Etoobiyaanka ahna waa daba socdaanba ninkan gaalkacay markuu ku noqday nimankii baa la activate gareeyay lama activate qaar kamid ah la activate gareeyay marka laakiin markan waxa la isticmaalayay Puntland iyo Etoobiyaanka naftooda dhinacaan oo shaqo kuma lahayn ciidan fara badan oo Etoobiyaan iyo ciidan fara badan oo Puntland ah oo wuxuu arkay ninkan marka jaajuus waaye soo cadaadii ama soo deploy garay oo si unusual ah aan caadi ahayn u ark meeshuu fiiriyay wixii uu fiiriyay maanta tanshka maxaa colaad ma ogeyn kiyo arko meel taagan marka one of these saddexdiina mid kamid ah oo arko yaqaan markaas yuriyaday maxaa socdo markaas yiri ninkii ma ogeyn loo diri jiray ninkii yaa hotelkaas ku jira aan rabaa in la qabto hotelku marka meel xuduud ah oo hadii kuwaan soo xadgudbaan xabad ay ka dhalanayso kan hadii ku soo xadgudbaan xabad ka dhalanayso sensitive waay qabashada ciidanka waxa ka dhalan kara isku dhac labada dhinac ka dhalan kara so they have to manage very carefully si oo taxadar inuu maaray kareen waa ninku meesha dogaa marka laf dhongasho ku noqdo maxaa tiri waa ninkii yaa meeshan ku jira ninkaan nin oo big fish inuu Etoobiyaanka yaa kan waa ogyahay marka oo dib loo soo tababaro oo mishinkii ka fashilmay ilaahay yaa ninkii fadhigiisa ugu keen ma hubtaa yiri noo soo qabo marka lacag lagu siinay soo qabo shibu yiri fagu yiri hotelku tagay liisku fiiriyay magac kale isku dhiibay qolku fiiriyay waa waay qalbi dhagax uu ku jiray marka meel oo corner oo jika iyo waxaas u dhow dhakabo siiste waa la tagay marka masawirka laga qaadayo la sheegay Cabdi Ilaa loo diray
oo la rabaa in laga gato $500,000 loo gaaray ninkaan all these things aniga ma ogi bas adina markaas labadaas nin oo la soo safiirka iyo security waxay dhahan ninkaas keen farmaajan uma sheegin khayran uma sheegin because inay fulayhiin oo ognaa inay yihiin oo daily ama wada maxaa farqa noogu soo gelinaysa balaayadan ay leeyihiin mogtahay daily oo mogtahay wax Ethiopia balaayadeeda iyo qorteeda hanoo soo galo meesha everything is possible adii ninkii diyuurada u diray saadaqan la hadlo yaqiin meesha saadaq joon la hadlay saadaq waa la keenay ninkii xabsiga la soo geliyay intaan aniga farmaajo is arkin Ethiopiaanku waxay u tageen farmaajo pressure saareen buuq waxa saareen anaga dhameena saareen adiga marka horta aniga qalbi dhagax bixintiisaan leh badbaadintiisa calashaan ha meesha galka ciyaarta ku cabdila la geela ama la dilaa meesha ama cabdila loo geeyo ama meesha lagu dilay horta in xamar la keeno horta fiiri nabi yunus ma aha markuu ku dhacay mase nabi yusuf ceelka marka nimana yiri hal dilo nimana waxay dhaheen ma ceelka lagu rido nina yiri ceelka lagu rido horta in la dilo lama arkeen laakiin ceelka nin waaba laga soo bixiyay mogta horta labadaas dilemma oo laba daran mid door mogtahay oo ahay ani maxamed hadaan keenay go'aankiisa markaas dawladda ay leh ra'iisul wasaare jooga madaxweyne jooga xukuumadda joogta an laakiin haduu niisadaas masabidka oo aniga aan waliba dirin hadii ama ay dhiibi lahayd ama ii sheeg maxaan ku dhahay ay dil lahaayeen eedda ani fuul lahayd now it's shared responsibility horta aniga hadaba xamar keenay ninkaas mas'uuliyadiisa waa iga wareegtay saana loo dhiibay saana inta hebel la dhiibay in arrinkaas marka sida u handle gareynay waa ka shalaysana it was not we could do it better sidaas ka fiican aan yeeli karnay intaadan laba qodob baad sheegtay qodobka labaad oo aad ka shalaysanta aadan noo sheegin aad ka qowmameynayso waxaan jeclaan lahaa su'aal inaan kaa weydiiyo ninkii ay Etoobiyaanku u tababareen oo saddexda nin ka midka ahaa inuu qalbi dhagax u soo qabtaan inuu niisa meesha madax uga noqdo wal arrintaa aad mogtay fatin ma jiro ninka he is very active asaba jaajuus oo soo tababaray mogtay ninkan skillskiisa iyo waxa la arkaa mogtay xirfadiisa bal arkaa la iskama hubin huna good news anaga de fatin ma naqaan waxas ma naqaan yaa yaqaan mogtay no good news teeda kale shaqadaas mishineed waana dhamaatay ninkan deegaanka waay dadka firfircoon ku jira waa la iska qoraa reebel iyo waxa loo qoraa meesha moogi qof inisa tababartay oo soo profile gareysay soo maal gelisay ma jiro qof walba waa la iska niisa mogtay waa iska xamaali hadde qodobka labaad marka noo sheeg intaan xasuusanahay waa markii labaad oo si muuqata kaamirada hortimaada aad qirato dhahdo arrintaas wixii aniga aan ka geystay ama waa ka qomameysanahay ama raaligelin aan ka bixinayaa walaani raaligelintaas dadkan public process ahada horta niyo qalbi dhagax eelkiisa iyo qabiilkiisa horta anay ahada inay xoolaysiyaan anay aad wallahi oo billahi tala koon aniga inaan la fiisata lama arkay teeda kale dawlo after all difficult decisions ay qaadanay go'aamo adag qaadanay Ethiopia Soomaaliya iyo qof iyo anaga Soomaaliya horta noo muhiimsan inkastoo muwaadiniintu muhiim tahay laakiin markaas farmaajo iyo anaga pressure kan ku jirnay iyo waxaan ku jirnay iyo waxaan ku dhawayna process ka saan u handle gareynay ma fiicnayn in la dhiibo iyo inaan la dhiibin wax kala waay iyo dood kale mogta laakiin we could handle it better saas ka fiican yeeli karno